ramadaanka iyo uur qaadista. bismillaah, assalaamu calaykum. magacaygu waa doctor Firdawsi Axmed Sheekh Nuur. waxaan ahay dhakhtarad ku takhasustay daaweynta iyo qaliimada dhammaan cudurrada ku dhaca haweenka iyo dhalmo la'aanta kana howlgasho Armaan Hospital ee magaalada Muqdisho. haddaba sidaynu ognahay bisha ramadaan waa bil cibaado iyo naf hagaajis. haddana dumar badan oo waxaa jira rabo inay uur helaan. marka su-aalaha ay isweydiiyaan waxaa ka mid ah tolow yacni soonku muu saameeyaa uurka? jawaabta su-aashaas maahan mid fudud. ogow, soonku wuxuu saameyn ku leeyahay yacni hormoonadaada, insulinkii ku jirto, maxaa la yidhaahdaa, cuntadaadii nooceedii, waqtigeedii, qaabkeedii, hurdadaada. marka intaas haddii marka hagaagsanaadaan, caadadaada wareegeedan wuu hagaagayaa, hormoonadaada way hagaagayaan, nafaqada jirkaaga way hagaagaysaa, maxaa la yidhaahdaa, ovulationna waa uu dhacayaa. haddii intaas ovulation markuu dhacana dee uur baa meesha imaanaya insha allah hadduu ilaahay ka dhigo. laakiin haddii intaas qalqal uu galo, dhibaato ay gasho, hurdadaadii, cuntadaadii, cuntada weliba ramadaanka waa waxa qofka yacni jirkiisaba maamula, ma fahantay? haddii cuntadaadu ay qaldan tahay, maxaa la yidhaahdaa, waxaa laga yaabaa caado wareer inuu kugu dhaco, in ovulation ba ay dhici weyso, ugxanta lasoo saari waayo, fursadii uurka ku yeelan lahaydna ay aad u yaraato. haddaba marka insha allah waxaa jiro live session berito soo geli doono 11 subaxnimo ama maxaa la yidhahdaa 5 saac oo subaxnimo, qof walba siduu u yaqaanaba, ilaa 6 saac waa live socon doona insha allah 1 hour ama 1 saacadood keliya. waxaa xooga saari doonaa uurka iyo maxaa la yidhaahdaa soonka. waxaa xooga saari doonaa oo kale insha allah PCOS-ka iyo soonka, naasnuujinta iyo soonka, hormoonada gabadha oo qaldan, yani thyroidka oo kaleeto dhibaato ka haysato, oo ama weight loss, weightkeeda aad u yaryahay, aad u buuran tahay, iyo soonka siday iskula xiriiraan. haddaba marka dhammaantiin waxaa idin leeyahay, qof walbo interest gareynayo ama xiiseynaya inuu wax ka ogaado, qof walbo su-aal qabo oo rabo su-aalihiisa in looga jawaabo, insha allah commentiska kusoo qor hadeertaan si aan yani u consider gareeyo. su-aalo qaar baan soo qori doonaa oo dad badan isoo weydiinayeen ayaantaan oo dhan. maxaa la yidhahdaa, su-aalahaas inta ay soo qortaan hadeertaan oo qeybaha ka tirsan, iyo maxaa la yidhaahdaa wixii beritoole insha allah inta qof aan su-aashooda uga jawaabi doono. live session wuxuu noqon doonaa soconayo, waa arki doonaa beri haddii 1 hourkaas yani ay ka badato waqtiga, waxaan ku dari doonaa maalin kale insha allah, waa idinsii sheegi doonaa. marka haddaba ha moogaanina live sessionkaas dhammaantiina kusoo biira. life cilmiyeysan waaye oo wax faa'iido jirkaaga u leh iyo naftaada, ilmahaaga uurka ku jiro iyo haddaad u raadinaysidba labadaba faa'iido ku leh. marka dhammaantiina soo dhawaada insha allah. lifekaas beritoole ayaa inoo balan ah, waa 19 February oo ah ramadaan maalinta labaad. maxaa la yidhaahdaa 5 saac ilaa iyo 6 saac ama 11 ilaa iyo 12 barqanimo. marka dhammaantiin soo dhawaada insha allah.